fursadaha waxyaalaha lagu sii karo waxaa kamid ah ta ugu horeysa waa luuqada wadanka aad degan tahay oonad si fiican u garanay taa markaan ka hadlayo anaa isa soo xasuusanaya dhowr sano ka hor maanta alxamdulilah marka waxaan dareemay luuqada wadanka haddaanad aqoon si fiican u aqoon fursado badan baad seegi kartaa يعني luuqadu waa muhiim weeyaan meesha aad degan tahay luuqadeeda inaad barato waxay kuu fududeynaysaa xafiis kastoo tagto inaad isdabarayso oo wixii aad u baahneed aad kasoo qaadan karto afkii baad ku hadlaysaa luuqada wadanka aad degantood garanayso waa xuquuqda waxaad xuquuqda u leedahood og tahay oo maxay ahayd afkii baad fahmaysaa wixii aad u baahan tahay waad isku dabaraysaa luuqada taqaano waad ku shaqaysanaysaa tacliin kasta aad ku gelaysaa aad ku baranaysaa marka waxyaalaha fursadaha ka hor istaagi kara waxaa kamid ah luuqada wadankoonad garanin marka qof walba oo wadanku doonayaba ha jooge waa inuu atleast ku dadaalo luuqadaas inuu baran karo akhrin karo qori karo hadduu xataa weli kugu adag yahay dhib ma lahan waa wax weeyaan bini aadanka alxamdulilah rabbil caalamiin ilaahay wax walba waynu ka bixi karnaa oo inoo sameeyey inaynu baran karno waxaad soo xasuusataa maanta pandemigii covidkii dhacay qaabkii wax walba mar kaliya saa inoogu soo dego sidan yeela waxaan sameeya hadba sidii loogu celcelinaya dadku automatically way iskala qabsadeen marka qofka bini aadanku uu u sameysan yahayba inuu isku adaabtayo wixii la qabsado waaba laynoo sameeyey dadaal yar bay u baahan tahay khaasatan niyad bay u baahan tahay qofka hadduu doonayo inuu wax barto niyad bay u baahan tahay haddaanad niyad u haysan sanado badan bay kaa qaadanaysaa luuqada wadankoonad garanaynin waa waxyaalaha kaa hor istaagaya fursadaha jira opportunityada badan ee jira ayuu kaa hor istaagaya marka in lagu dadaalo in luuqada la barto waa arinta horeysan doonay inaan xasuusino annahan isku dare arinta labaad waxa weeyaan waxyaalahaad rabto inaad sameyso maalin kasta dib aad u dhigayso haddaad cisho kastaba aad leedahay maanta ma haleelaya berri baan sameyn berri markaad timaadana tiraahdo maanta arrimuhu igu yar culus yihiin haddana berri baan sameyn berridii kale markaad gaadhana aad haddana excuse kale la timaadid maanta madaxay xanuunaya maanta ma haleelayo hawsha igu badan cisho kasta haddaad waxyaalihii aad rabto inaad ku dhaqaaqdo dib u dhigto fursado badan ood gacanta ku dhigi karto ayaa iyada laftigeegu ku dhaafi karaa marka waxa weeye hawsha hadday kugu ballaarato waxaanaad sameynaysaa hadduu kugu weynaado hadduu kugu adkaado inaad bismillahi raxmaani raxiim la yidhaahdo la fadhiisto buugii qalin aad ku qori karto waxaan aad rabto inaad sameyso magac ma leeyahay waxaad doonaysa inaad sameysid kadibna step by step ishaba wax yar aad istiraahdo maanta arrintan aan ku dhaqaaqaya arrintan kale aan ku dhaqaaqi doonaa wiiga dambe sanaan sameyn doonaa bisha soo socoto waa inaan ilaa intaa gaarsiiyo ishaba wax yar wixii hadaad sameyso saad kolba page u rogeyso kolba in yaroo hadduu xitaa yari hadhib male waxaaba hadhow isbiirsan doona waad aragteen walaalayaal markay baambadii ay jabto baambadu yar dabacdo baaldi faaruqa markaad hoos dhigtid oo emptya habeenimada markaad ka seexato subaxdii waxaad soo toosaysaa biyihii siduu baaldigaa kolba ugu dhacay habeennimadii adigoo horday subaxdii waxaad usoo toosaysaa baaldigiyo amba nus buuxsamey amba wada buuxaba markaa shaqaduna waa sidaas oo kale step by step hadba sidaad in yar ugu kordhinayso arrimahaaga guul waad ka gaari kartaa insha allah markaa in waxyaalaha fursadaha kaa hor istaagi kara waxaa kamid ah wixii aad rabtay inaad sameyso hadba dib u dhigaysid tan u dambeyseen kusoo koobay videoga waxaa kamid ah waxaa iska jira dad businessya isku dayay inay ku dhaqaaqaan amba tacliin ku dhaqaaqaan ayagu waxay ka sheekeeyaan waxyaalahay soo naceen inay u shaqeyn weyday arrintaasi inay u hirgeli weyday inayna fiicnayn meeshu waxyaalahabay dadku qaarkood ay sheegaan waa dareenkoogay ka hadleen inaad waxyaalaha iska ogaato ma xuma waayo digniin bay ku tahay dhiirigelin bay ku tahay oo maanta markaa dariiqa aad marayso qofka ugu yidhi halkaa god baa jira iska ilaali dee qunyar baad u soconi oo ma xuma inaad informationo iska yar hesho balse haddana haddii aad rumaysato oo qof businesskiisu u shaqeyn waayey oo maanta dhan uu dee kuu baqso ku yidhaahdo waxani ma fiicna heerka ma gaadhisid waan ku khasaaraysa inay noqotay kama dhigna iskuma dayi kartid wixii ma fahamta waxyaalaha fursadaha kaa hor istaagi kara waxaa kamid ah dee qof asxaab tiinaba qof aad meelaha ku aragtay oo businesska aad rabtay inaad sameyso isaga wuu hirgeli waayey
inaba lihiin la digtoonaan waa in markasta la taxadiro la digtoonaado qoyar socdo qodiximo muddo haddana waxa weeyaan hadal walba qofku inuu iska rumaystana maaha adigoo digtoon aayartaada socda indhuhu furihiin dhaguhu furihiin inaad haddana tartiibtaada waxay naftu jeceshahay isleedahay heer baad ka gaari kartaa oo khayrna kugu jiro aad iskaga dadaali karto insha allah arinta waxaan ugu soo xasuustay beri baan doonayay inaan ku dhaqaaqo business inaan sameeyo waxaa jiray qof aan garanayo businesska isku dayay sida gabadhii iigu wixii kolba iiga soo qaadaysa waxaan waxba ahayn ay ku khasaartay oo heer ka gaari weyday oo maxay tahay intaasoo dhibaataa ku dhex jiro intaasoo dhan ay ku rafaaday wixii waaba nacayba umaba dhaqaaqin sidii baan kaga haray marka waxaa jirtay waqti aan ka qoomamayn jiray oran jiray waay baad ugu dhaqaaqayda waxa gayrada qofka wuxuu isagu shakhsiyan uu soo maray inaad deystiraado adoo waad mari kartaa maahin waa in waxa weeyaan aad taxadirto why not balse aad isku daydo adiguna waxay qalbigaagu doonayo hadduu kuu socdo kuu socdo alxamdulilah hadduu kuu socon waayana at least waad isku dayday gabdhaalayaal intaasaan videoga ku soo koobay aad baan idiin salaamayaa haddaad nagu cusub tahay nagu soo biir insha allah si aad u hesho videoyo sidan oo kale iyo qaar kala badan haddii la idhaahdo aad baan idiin salaamay asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu